maxay furayaasha dadka lagu furaa haddaba baro furaha dadka lagu furo qof kasta oo nool wuxuu leeyahay furo lagu furo markasta ogow qofka aad rabtid sida loo furo iyo furaha lagu furo waxaa jira dad aan isfahmin oo midba midka kale ka cadhoodo isagoo leh ka ama taa waa la diiday xaqiiqadu waxay tahay isfaham waa ka dhex jira iyo kala duwanaanshaha fikradahooda oo aad u kala fadaba aad u heshid qofka aad rabtid waa inaad baadhaa oo aad raadisaa dhaqankiisa saxda ah waxa uu rabo iyo waxa uu diidan yahay kadibna inta aad ka fahantid ee aad isku midka ka tihiin kala soco qof kasta dabeecad gaar ah ayuu leeyahay noqo qof cid kasta fahmi karto cid kastana ugu jawaabi kara haddaba noqo qof dadka cafiya raali geliya una mahadnaqa hambaligeeya la farxa lana wadaaga farxadda iyo murugadaba dadku maaha inta kugu hareeraysan se waa inta ku taqaan inta aad taqaanin inta aad maqashid iyo inta aad magac dhul dhalasho dhiig iyo diin wadaagtihiin dadkaaga dhaqan wanaagsan iyo la shaqayn wanaagsan kula noolow isbeddelka nololeed ee aad rabtaa waa midka ku xidhan habka aad u dhaqanto iyo sida aad naftaada u hawlgelisid naftaada inaad hawlgelisaa waa mid u baahan qorshe joogto ah sidoo kale waa mid u baahan in la raaco waddo dheer oo aan la garanayn wax hor yaalla wax kasta oo kaa soo horbaxana awooddaada shakhsiyadeed ku jiir kuna dhaaf ha saarin oo ha leexin waad arki dhib iyo daal badan si raaxa iyo nolol isleeg ayaa ka dambaysa marka aad samirtid ee aad qaadatid kuna kalsoonaatid naftaada iyo waxqabadkaaga shakhsiyadeedba una talo saaro Allah subxaanahu wa tacaala yeelo qof aad ku daydid qof kastaana toosin buu u baahan yahay dhaqaale iyo dhaqaajin buu u baahan yahay adduunka dadka ku nool qof kasta wuxuu leeyahay wax soo saar Allah ugu talagalay ibnu aadamku waa cajiib qof kasta waxqabad buu leeyahay haddii laga shaqaysiyo maskaxdiisa aqoontiisa iyo xooggiisaba qof kastaana wuxuu u baahan yahay xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala iyo caawinta ummadda ay wada nool yihiin noloshu waaye badan waqti badan wareer badan wanaag badan iyo wehel badan bay leedahay noqo qof noloshiisa iyo noolaha kalaba meeleeya salaan islaamka ku salaam assalaamu calaykum waxaad heli doontaa dad badan oo ku jecel waxaanad wehel u noqon doontaa dad badan oo cidlo iyo wehel la'aan dareemaya salaanta aad salaantid walaalka ama walaasha ayaa sabab u noqon karto inaad afkaar iyo sheeko wadaag yeelataan dabadeedna aad heshiis ku noqotaan salaanta aad salaantid ayaa furo u noqon doona inaad ku heshid waxaanad markaa haysan salaanta badi salaantana qaad dadka kasba oo ku farax salaantooda iyo wehelkoodaba ugu dambeyn waxaad heli doontaa dad badan oo ku jecel waxaanad kasban doontaa asxaab